سجاي أنتوا صنّي كان يعني يصوت دون كار ويل كلا يانس برنا أور أيام إيران لكن وانك أمسي نكان يصوت دونتي ومشيجن مركز وحان أهاي 3 weeks لباتن يدور مالمود أيان أور لهاي لباتن يدور مالمود أيان أور لهاي إلهي سبحانه وتعالى درتيس ولا ليال فافية شرقرية إلهي سبحانه وتعالى درتيس يعني جنالنا كلا واوين اي صومالي اسكليهين فيسبوك سوشيال ميديا اديكنا فافية شرقرية dadka ummadda waxaan rabaa qof walba oo Soomaali ah qof walba oo muslim ah in ay ka taxadaraan arintan in ay gaarto qisadan gabadhii ii sheegtay qisadan waxay dhahday permission ayaan ku siiyay in aad dadka kale u gudbidid sidii ay ka waan ahaan sidii ugu qaataan waxaad ku sii dad gabadhaas waxay ahayd 20 maalmood ayay uur lahayd ninkan soo doontana ما أوس أوجين نكان صوت دونته ما أوس أوجين فرحد قصل هبي أيو أسكاها أسكي دماي يعني ما شاء الله ودريم كرتا قف جورسدي أو أسكا فرحسن أنت أصلا ما تقانا أسكي يعني إلى لنا حاران حمان أصلا وحو أهينين أسكي أهل الدين وإله سبحانه وتعالى كبقى أسكنا يعني وحو أملي قبضنا إني إهاد قف وناكسن أهل الخير سيدا درادت أيو أقول سدي وحون يعني أقول سدي نبي صلى الله عليه وسلم دردارن كيسو اهد فر بذات الدين تربت يداك دونت كمان يعني دين تله قفك الدين تله نمبر 1 كدقته قفكاس هايدين نقض قف يعني priority number 1 قفك هايدين نقض مركي اد قول إيه وحاس ربتين إن قشين سو النبي صلى الله عليه وسلم ده صلى الله عليه وسلم ولا ليال ده صلى الله عليه وسلم مركاد مغشد وإنا ولازم إن أدهديد صلى الله عليه وسلم نبي الصوبان عليه الصلاة والسلام إن أتكوس اللذين كبدي أور أيي لهاد سيدي يعني قصة قلنا عذي أور أيي لهاد لباتني دور مالمود أي أور لهاد ويلكن ويكا قرينيده ما دام والدكيد اي u diideen ما دام والدكيد اي ku adkeeyeen ما دام والدكيد اي dhiha ka xirteen gabadhii yani waxay ku noqotay aad iyo aad ayay yani gabadhii yani waxay ku noqotay inay xakameedo aad iyo aad ayay culays ugu noqotay waxay dhahdeen waan zinayste ninka markuu soo doontay oo ii imaaday ninkii aan jeclaay waalidkeygina ma taqaanaa sanad kadib ii ogolaadeen anigii dhamaay waan iska khalqalay dhahday ma ogeen yani waxas I don't know what to do waxa sameeylahay yani ka hal sheeg anigii dhan walwal yani culaysa isaarnay waxaan u sheegay xataa ma garanayn ninkan afkeyga iska xirtay dhahday afkeyga ayaan iska xirtay ay sidaa afkeyga ayaan iska xirtay afkeyga markaan iska xirtay subhanallah guurkii sidaa bay ku dhacday markii aan isguursanay ninkeyga aad iyo aad ayuu ii jeclaay anigeena waxaan iska noqday gabar ma taqaanaa ma sha Allah oo ninkeeda jecel yahay wax yar kadib wuxuu isdahay ama wuxuu dareemay anoo ma taqaanaa uur le ayuu dareemay anigana waan u sheegay waxaan ku dhahay xajigeygiyo ninkeygiyo waxaan rabay inaan kula wadaago wax ayaan rabay akhbaar ayaan rabay inaan kula wadaago ninkeygiyo wuxuu dhahay maxaa waay asagoo shaqo joogo maxaa waay xaaskeyga bal ii sheeg akhbaar fiican miya maxaa waay bal ii sheeg ila wadaag ninkaagiyaan ila wadaag waxay dhahday uur ayaan leeyahay allahu akbar kabiira يعني مركي او مخلي حاسكيغا اقول يعني ايقاتي فرحت درتد he was so happy فرحت درتد وحود يعني وحيد هذي
waxaan maqlay taleefon intaan markaan u sheegay akhbaarta asagoo faraxsan asagii oo mataqaanaa happy ah asxaabtiisa oo la shaqeeyaan u sheega my wife xaaskayga waa pregnant uur ayay ii qaatay maxay dhahdeen intaa oo dhan waxaan ku noolaay murugo asaga wuu iska faraxsanaa kor iyo hoos oo u boodaay yacni qaylo farxad darteed yes alxamdulilah xaaskayga uur ayay ii qaadeen laakiin wallahi ma ogo uur ayaan leeyahay laakiin ma ogo anigana yacni intaas waan ka qarinaya afkayga shib afkayga hee waan ka qarinaya anigana afkaygii waan iska xirtay yacni asaga inaan ka faraxsiiyo yacni anigiina ma aqaani waxaan sameeyo yacni subxaana allah anigii dhammaay nolosheeda waaba iska si kala waaye waxaan soo xasuustay ay dhahdeen qur-aanka ayaan bilaabay inaan akhriyo waxaan bilaabay salaada inaan tukado waxaan bilaabay ilaahay subxaana wa tacaala istikfaar inaan weydiiso dembi dhaaf waxaan bilaabay ilaahay subxaana wa tacaala in aan weydiiyo yacni in uu iska kii cafiyo xumaantan oo aan nafteeda ka galay ayadda qur'aanka anigoo akhrinaa axmed sidiiqow markay yacni ii sheegayso qisadan waxay dhahday axmed sidiiqow ayadda qur'aanka anigoo akhrinaa ayaan soo maray suura alghaafir ayaa soo maray suuraddaa anoo akhrinaa waxay dhahdeen aayaddan ayaan bilaabay in aan yacni aayaddan markii aan bilaabay inaan akhriyo waan iska murugooday dhahdeen waan iska murugoodeen sababtoo ah shaydaan ayaa been ii sheegay ibliis ayaa been ii sheegay shaydaan ayaa shiisho ii qurxiyey shaydaan ayaa ii qurxiyey zino shaydaanka ayaa ii qurxiyey wax kastoo xun shaydaanka ayaa ii qurxiyey wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala xaaraam ka dhigay aayadda waxay dhahdeen bal aan kula wadaago aayadda وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال سبحان الله aayaddaas waxay dhahday gabadhaas markii aan bilaabay yacni akhristeeda markii aan bilaabay inaan akhrisado waan iska ooyey ayay dhahdeen waxaan xasuustay shaydaanka iyo ibliiska iyo yacni wax kastoo xun oo balaayo iyo bakti iga dhaadhiciyey وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا يعني aayaddan walaalayaal haddii aad la socotiin maalintaas yawm alqiyaama wallahi waa maalin adag waay maalintaas yawm alqiyaama waa maalin adag and mention when they will argue within the fire yani una sheeg markii ay murmi doonaan ayagoo dabka naarta ku jiro
kuwa ducafada waxay leeyihiin waxay ku leeyihiin kuwaas yani kibirka badan ahlu kibirka ah indeed we were only your followers waxaan ahayn yani kuwa itibaac yani wax kastoo sameeyeen iska yani daba socdo will you relieve us a share of fire يعني أيكي ويدي دونان will you relieve us a share of fire those who had been arrogant will say كو أهل الكبر كأه وحيلين مالتاس يوم القيامة كو أهل الكبر كأه مركي الله شاق اسكتناف وحي حن حمانتا كفقو زينادا كفقو شيشادا كفقو ويلي قبر متغانا صاحب من نغو كران كفق هذا كواس أهل الكبر كأه مالتاس يوم القيامة مضح أذك أو يعني وحكس اللي قد دعوة كبير كبدن وحيلين indeed all of us are in it وحيلين أنا كدن جهنم أيام كجرنا أيليهين سبحان الله والله اللي دقيسته أرنتان ما أرن محي أهد سهلا ما أرن سهلا ما قبضان وحيد هذا وأسكم مرقود مكي أن يعني آيدان أخيست كذا ما كان بالله به إلهي سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد يعني إلهي سبحانه وتعالى قفنا ما الظلميو يعني قف والبو إلهي وحوية جاج أو عادل عباد كده and those in the fire will say to the keeper of the hell كواس جهنم كجر وحي ليه يعني سبحان الله كان نار توادينا أي ليه supplicate your Lord إلهي سبحانه وتعالى no way دي يعني حتى مال حتى هالنقطة for us إنه نو خفيفيو إنه نو خفيف إلهي سبحانه وتعالى مالين حتى عذاب كان إنه نو خفيف إلهي سبحانه وتعالى إلهي no way دي وحيليهن كذب وحيليهن صوكوم إيمان النبيال رسول أو كو كان عدين كنا وانية وحيدين دونان قالوا بلى ها يدي دونان نارت مركي لغو تورو وحال اللي مركز أذنك يعني ويديسته يعني إلهي سبحانه وتعالى إنه يدين سهلو إنه يدين خفيفية نارتان ويديسته وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ذاتك متى إلهي سبحانه وتعالى رميسان أهل النار كان يعني دعاء ذو وحب الله كمسوق هذا يعني وإبرواي إلا في ضلال كفرنا وحيد هذا وان اسكو اوي ميهان نقود دونات ذاتكاس أو أهل النار ما دام أن زينيست ما دام أن أورليه ننكيغن ميو أغاد دونا إلهي سبحانه وتعالى القرآن وحكيرا سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إلهي سبحانه وتعالى مدين حتى يعني هؤدوان زنا إلهي وحده هذا كف فكرين زنا هذا كف فكرين زنا واي إنه كان فاحشة وساء سبيلا ووحآت أحن يعني أمال حن دريقي ذي وقدم بينكم نقدونتو سيدا درادد هؤدوان الزنا على كل حال وأنصر الله بيننا تاس قصة أن إذين وضو gabadhan waxay dhahdo wiilkii kori hoos ayuu bilaab inuu u boodo farxad darteed dadkii asxaabtiisa u sheegay xaaskii uur ay qaadahay xaaskii uur ay qaaday guriga imaaday gabadhii wuxuu arkay iyadoo mataqaanaa si kale iska murugaysan subhanallah wuxuu dhahay maxaa ka qaldan wax fiican ayay ii sheegtay uur ayay leedahay wayna murugaysatay talow gabadha miyay iska xanuunsantay talow dhaawac miya ma gaaray وهذا وشاكي شب أيدي دماي مرت إني هذا الشو وحمل ومشي جيدو ويلكي ومكا كدب وحب الله بنكيته إن أودتك ويدي ضدك يعني كلوس وقها أيضا ضدك يعني وحي وشاكين قبلنا وحي أهاجت ولي جيد سيداني أهاجت
awalna wuu ogaay laakiin waxba muus ka soo qaadin hore uga socday 9 bilood ayuu u sugay caloosha xanuune saan ayaan ahay isbitaal u baahanay inaan aado isbitaalku geejire wixii mataqaana xanuun ay yani ay pregnancy kala kulanto uu ka caawi jiray wax kasta u baahantay cunto ha noqoto yani wax kasta u baahan in la qaado quraac subaxdii in loo keeno wax kasta uu sameey jiray ayadana way fakaraysaa waxay leedahay ninkan yani saan sabarka u badan sabarkii saan u ah yani talow ma laga yaabaa in uus ogeyn talow ma laga yaabaa in uus ogeyn uur yani isbitaalku geeyey waxay dhaadeen waa caloosha xanuuna isbitaalku geeyey dhakhaatiirtii waxay dhaheen yani it's time for delivery it's time for delivery cunuga yani in aad dhashid cirbadaa lagu duro adiga waa iska garanaysiin markuu cunug dhalana processka ay hooyo marto waa iska garanaysiin processkaas ay marte cunugii ayaa laga soo saaray markii laga soo saaray ninkii yani wali xaaskiis ayuu caawin ayadan iska murugaysan tahay he's wondering what's going on meeshan yani I don't understand yani markasta murugo ayay ku nooshahay wax kastana waa u qabtaa yani ma fahmi kari maxaa ka qaldan wuu fahmi ka waran wuu fahmi wuxuu dhahay bal cunugan maadaama saan ay ahayd taariikhdeeda hore maadaama taariikhdeeda hore ay sidaan ahayd bal aan dib ugu laaban cunugan bal waxaan rabaa in aan arko haddii aan dhalay aniga ama haddii kale haddaad rabtid inaad ogaatid yani cunuga inaad dhashay ama haddii kale waxaad samaynaysaa qof walba yani waxaa lagu ogaadaa fingerprints qof walba adduunyadan wuxuu leeyahay fingerprints u khaas ah dhiig yani u khaas ah wuxuu dhahay intaan isbitaal iyo waxaas geelahay waxaa laga yaabaa in ay iga shakid ayada cunugii markii uu seexday ayadana markay seexatay si tartiib ah ayuu sariirta uga kace baybigii ayuu u tegey baybigii markaa wuxuu bilaabay aabbaa wuxuu bilaabay ninkii wuxuu bilaabay maqas inuu qaato tinta cunuga in uu ka jaro ayuu bilaabay tintii markii uu ka jaray si tartiib ayuuna uga jarayaa ma raba in oo yani xaaskiisa in ay soo kacdo waayo hadday soo kacdo sheekada yani isku qarxe waa lis ogaana si tartiib ayuu sheegays asagana u watay walaalayaal insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis ya ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis faafiya share ku dhufta share waa free way faafintana waa free way waxa lacag laga qaadaa ma jirto ninka Facebook iska leh hadoo lacag kugu soo dalaco share gareyn darteed ani iimo insha Allah biilka ana ka bixinaay ani iikeen biibillahi alkareem insha Allah walaalaha kale siday uga faa'iideystaan share gareeya like faafiyana si tartiib ah ayuu kushiinka u galay bac soo qaatay bacdii wuxuu dhex geliyay tinta ayuu dhex geliyay walaalayaal tinta cunuga babyga ayuu dhex geliyay tintii markii uu dhex geliyay subhanallah jeebka ayuu gashtay bacdii macal tintii ku jirto jeebka ayuu gashtay isbitaal buu isku dhaqaajiyay isbitaal ayuu yani isku dhaqaajiyay isbitaalkii markii uu aaday xaaskiisa soo kacday ninkii aawe والله waxa laga yaabaa shaqo inuu aaday hurdadii ku laabatay dhahday ninkii isbitaalku aad wuxuu dhahan wana know waxa raba inaan ogaado tintan bacdan ku jiro hadii yani ay tintan iyo tinteeda hadii ay iswaafaqsan yihiin ayaan rabaa inaan ogaado ii sheega hadii ay iswaafaqsaneen ina soo sheega dhaqaatiirtii waxay galeen examination laboratory markay dhex galeen tintii ay dhex geliyeen waxay sameeyeen test ay sameeyeen imtixaamo ay ka qaadeen tintii ay eegeen way baareen markii ay baareen asagii tintiisi iyo tinta cunuga wax isku mid ah ilaahay baa ilahe ma jirto ayuu ninka dhahay dhaqaatiirtii waxay u sheegeen it's different hair timaha isku mid ma aha ninkii yani wuu qaraacme what do you mean tinta bal mar kale test kala geliye examination kala geliye
dhakhaatiirtii way ka yeeleen examination kale ayay tintii geliyeen tintii ay baareen tintiisina ay isku agbaan asaga tintiisa iyo tintii cunuga babyga haddana waxaa soo baxay examinationkii labaad testigii labaad waxaa ka soo baxay in uusa yani shuqul inay isku lahayn tintiisa iyo tinta babyga ninkii afkiisa ayuu xirtay wuxuu dhakhaatiirta ku dhahay thank you very much for the process can I have the hair back tinta ayaa loo soo celiyey guriguu imaaday xaaska waxay malaydaa shaqo inuu joogo guriga ayuu imaaday wuxuu dhahay mujeedaa bacdan macal tintan qaadoo dhehe cunugii dhalay babygan iyo mataqaanaa yani adiga bax meeshaa ka dhacaydin ka dhaca gabadhii waxay dhahda ooyin waa iska ooye ooyin waa isqaba waaye yani anigii dhammaan waxa sameeyo ninkii wuu ogaaday wuxuu ogaaday in aanan inuusan dhalin cunuga yani way u caddaatee meeshaas ayuuna igu furay meesha ayuuna igu furay subxaan allah ayadii maxaa ku dhacay markaas feerkeedaa ka burburay maadaama ay qarinayde maadaama ay guurka baanbaan ku soo gashay maadaama ay ninkan khiyaantay maadaama aysan runta u sheegin maadaama ay soo zinaysatay tintii sidaa isagoo u haayo ayuu dhahay tintan ma ujeedaa adiga iyo ninkii ka dhalay iyo ninkii cunugaan adig kaa dhalay bax meesha isla aadaydiin isla aada shuqul aan isku leenahay maanta iyo wixii yani ka dambe ma jiro nothing gabadhii waxay dhahday I started crying waxaan bilaab inaan ooyo anigi dhan waa isqaba waaye why because wuu ogaaday waan ku soo cararay waxaan dhahay icafi raalli ahoo maxaa uga jeedaa yani markii warqadihii dhakhaatiirtana miiska ii soo dhigay haddaan u malid inaan iska daldalmaa oo dhahe warqadihii waa kuwaan dhakhaatiirta waa professional exam